بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسؤال كمد سؤاله إني مالين لها أي فيسبوك سؤاشا وقفك نسوي دي ولي حي waxaan ka shaqeeyaa dukaan lagu iibiyo waxyaabaha dumarku isku cadeeyaan mushaarka iga soo galaa xaraan miya طبعا waxay ku xiran tahay waxaanaad iibisay xaraan ma yahay su'aashana markii koobaad iyo labaad ma waa su'aalaha soo noqnoqday bay ka mid tahay waxaan marar badan niri waxaan la isku cadeynayo saddex arrimood baa laga eegaa mid qofka sameynayay u noqotaa labana gadista waxa la isku cadeynayay u noqotaa baa asaas waa qofkana way ku noqoni waxani inuu caafimaadka wax dhimin baa la doonayaa hadduu wax jirka difaaciisii dilaya oo maqaarkiisii dilaya oo qofkii dhib soo gaarsiinaya uu yahay gadistiisuna ma banaana isticmaalkiisuna ma banaana nafta iyo jirkuna waa ammaano in la ilaaliyo ilaahay lagu caabudo nicmada iyo abaalkeedana looga shukriyo loogu talagalay qayb badan oo dhib geystay oo laga calaacalayo sawirro iyo dad dhib gaari la soo bandhigayo badanna waan aragnay dhib maleeyahay mise ma laha dhakhaatiirta su-aasha faahfaahinteeda la weydiinaya arrinta labaad waa maadaduu ka samaysan yahay inaan ahayn maado xaaraana oo khamri iyo wixii lamidka ahaa iyo khansiir iyo taaduu ka samaysan yahay iibintiisuna ma banaana isticmaalkiisuna ma banaana arrinta saddexaad ee qofka isticmaalaya u noqonaysaayo inuusan dadku khaldayninoo uusan dad ku siraynin rag iyo dumarkuu dooni ha noqdee hadduu wax ku siraya isticmaalkaa xaaraam ah laakiin labada kale midna haddaynan ahayn iibinteedu xaaraam ma ah saa darteed waxay u baahan tahay inaad dib u eegto waxaanaad gadaysa ee isku caddeeyo hadduu labadii nooc ee xaaraamta ahaa yahay ama labadii midkood yahay mushaarkaad ka qaadatana waa xaaraam hadduunan ahaynna mushaarkaad qaadata waa ku xalaal wabillahi towfiiq